مسؤولين laga soo doorto gobolkan waqooyi bari ee dalkani Kenya iyo waliba laamaha amaanka ee gobolkan waqooyi bari ayaa waxay ugu baaqeen shacabka ku dhaqan gobolkan waqooyi bari in ay ka qayb qaataan sugidda amaanka isla markaana ay la shaqeeyaan laamaha amaanka ee ka howlgala gobolkan waqooyi bari si markaasi looga hortago waa sidii hadalka u dhigeen mas'uuliyiintan weerarada ka imaanaya al-shabaab. Mas'uuliyiintan ayaa sheegay inaysan u dulqaadan doonin in la carqaladeeyo horumarka gobolkan isla markaana dhibaatooyin loo geysto bulshada ku dhaqan gobolkan waqooyi bari. sidoo kale mas'uuliyiintan ayaa sheegay inaysan marnaba ogolaan doonin in dhibaatooyin loo geysto dadka kale ka soo jeeda dalkan Kenya ee ku nool gobolkan waqooyi bari. Mas'uuliyiintan ayaa waxay intaasi ku dareen inaysan suurtagal noqon karin in gudaha gobolkan dhibaatooyin markaasi ay ka sameeyaan al-shabaab iyagoo markaasi sheegay intaasi carqalad ay ku keenayso horumarka gobolkan. Mas'uuliyiintan ayaa si weyn uga codsaday dadka gobolkan waqooyi bari ku nool in wax kasta oo markaasi carqalad ku ah dhanka amaanka ay ku soo wargeliyaan laamaha amaanka si markaasi looga hortago arrintaasi dhibaatada ku haysa dhanka amaanka. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay inaysan marnaba suurtagal noqon doonin qof ka imaaday meel kale sidee hadalka u dhigeen iyagoo markaasi oo la jeeday al-shabaab inaysan dhibaatooyin ka geysan karin gudaha gobolkan taasina ay dhibaato ku tahay shacabka ku dhaqan gobolkan waqooyi bari iyo waliba guud ahaan dalkan Kenya. Mas'uuliyiintan ayaa waxay intaasi ku dareen in cid kasta oo ka hor imaanaysa horumarkan gobolkan ay gacan bir ku qaban doonaan. Hadallada mas'uuliyiintan ayaa waxay ku soo aadeen xilli muddooyinkii ugu dambeysay dhibaatooyin dhanka amaanka ay ka dhacayeen gobolkan waqooyi bari taasi oo laamaha amaanka ee dalkan Kenya ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyaan al-shabaab. qaar ka mid ah mas'uuliyiin annaga Soomaalina waa mid waxa la laba indhood maxaa la jiray kalama hurdaan Soomaha oo isku hurdaan haddii Soomaali dhibaataysan tahay annagana waa rafaadsannahay ma runta ni sheego waxba Soomaaliya la kala qaadin Soomaali meel ay joogto waa mid kan Soomaaliya joogo ee kan inta joogo isku mid baan marka waxa fiican dad islaam baan nahay oo daris ah oo wada dhashay ina horta soo sheegay arsiga nabadgelyada aan aad u ilaalino Soomaali waxay dhahdaa habar karis maxaa la jiray haddii maanta dhadhaab guwato ana wax dan ugu jirto malaha haddii faafi guwatana wax dan kugu jirto malaha marka midda koowaad soo arsiga sheegay ninka walaalka anaga waa nin Soomaali ah asagana u xil saaran amniga North Eastern kulli Soomaa marka waxa fiican inaan la shaqeeyno asaga hadda asaga la shaqeey wayno annagoo dhan baa ceebaysan macal asaga waan ceebaynay faafi sidoo kale meelo waxa jira aan la mari karin wadooyin qaar way xiran yihiin sababtoo ah balaa dhulka la gelinaya baabuurta la qarxinaya waxa ku dhamaadaya waa dadka anaga haddii askar noqoto haddii noqoto shacab waxa rafaadsan waa anaga waxa ooyni waa anaga hadana faafi dhadhaab iyo ijaarabo runtii sidoo kale way sababtan waxa keenaysa macal wajiga south wax alla wixii la leh xuduud Soomaaliya marka anaga waxa muhiim ah dib iyo qarax iyo shiddo inuu wadanka Kenya ku sameeyo ma ogashin gacanta ay tusa ina soo galeen gacanta ay tusa wasiirka tusa dadka dhaxda naga habeenay dharaar socdo maxaan ku sameeynaynaa war dadka dhaxda naga socdo ifo habeenay dharaar wareegana war dhagaxle wareegana war xagar dheer wareegana war kaambicoos wareegana laga yaabaa qaar waa wiilasheenna qaar waa ilma adeerteenna qaar waa qaraabadeen sheegno dawladda aan la shaqeeyno haddii aan dawladda la shaqeyn wayno nabadgelyadana way baabaaysaa. gobolkan waqooyi bari oo ah gobolka ay Soomaalidu ka degto dalkan Kenya isla markaana xilligan ka kooban 3 ismaamul Garissa, Wajir iyo waliba Mandera ayaa waxa muddooyinkii dambe ay la dhacayeen dhibaatooyin dhanka amaanka ah taasoo ilaamaha amaanku ay sheegeen inay ka dambeeyaan al-shabaab. qaybo badan oo kamid ah gobolkan waqooyi bari ay wax ka dhigayeen macallimiin ka soo jeeday qaybaha kale dalkan Kenya ayaa waxay ka baxeen goobihii ay iskuulada ka dhigayeen taasoo macallimiintu ay ku sheegeen in dhibaato dhanka amaanka ay ka jiraan. sidoo kale xilliyada qaar waxa dhacay in isu socodka gaadiidka uu hakad ku yimaado kadib markii cabsi laga qabo in weeraro ay ka yimaadaan
dhanka al-shabaab. Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi iyo Gol TV-ga caalamiga ee Royal Dhadhaab gobolka waqooyi bari ee Kenya.